asalaamullaahi calaykum idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kasti oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaana dacwadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa hadduu rabbi idmo qodobo xiise badan oo ay ka mid yihiin magaalada laascaanood wararka naga soo gaadhaya ayaa sheegaya in cuqaasha garaadyada odayaasha iyo dhaqanka beelahaasi ay ku shurayaan magaaladaasi iyagoo ka shiraya masiirka ummadda ama idhaahdee gobolada sool sanaag iyo cayn waxaa kaloo daawadayaal wararku ay sheegayaan in habeenkii xalay ahaa xili ay socdeen shirarkaasi ay jabhadda reer khaatuma weerar ku qaadeen laba xero ciidan oo ku tahlay duleedka magaalada laascaanood waxaana la sheegayaa inay ku dileen ugu yaraan 12 askari oo kamida maamulka amaba idhaahda ciidamada somalilan waxaa daawadayaal sidoo kale aan ku qadaadhigi doonaa magaalada muqdisho saraakiil lagu qaqabtay ayaa la sheegay in ay ambaba ay qirteen inay ka dambeeyeen qaraxyadii magaalada muqdisho lasoo gelin jiray ayna fududeyn jireen kuwaasi oo la sheegay inay ku qaadan jireen lacago aada u fara badan barnaamijkaasi ayaan sidoo kale ku dul istaagi doonaa dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa weerar afka ku qaaday dadka degan magaalada muqdisho wuxuuna sheegay ra-iisul wasaaruhu in kooxaha al-shabaab ee qaraxyada ka geysta magaalada muqdisho ay iyagu martigeliyaan oo ay hoosta ku haystaan qodobadaas iyo kuwo kaloo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qadaadhigi doona barnaamijka waxaa ilaa falanqeyn doona saaxiibka igooni oo inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta soomaaliya gooni fargoda waa mahadsantahay haddaan ku hormarno magaalada laascaanood xala dagaal aad u culus ka dhacay taasoo ay jabhadda s s c deegaanka khaatuma ay weerar culus ku qaadeen nimanka lagu magacaabo somalilan ciidamadeeda oo laba control magaalada duleedkeeda ku lahaa kadibna waxaa la sheegaya in 12 qof oo ciidamada somalilan ay dhinteen jabhaddana ay qaar kale ay ka dhinteen waxaa kaloo la sheegay in 4 qofood oo ciidamada somalilan ka tirsan ay ku dhaawacmeen ayagoona aan u diyaar garoobin oo dagaal aan filanayn gaadmaha lagu qaaday labadaas xero labada xero mid waxay u dhowdahay guriga wasiir kaahin uu ka degan yahay ee magaalada laascaanood kaasoo u joogo wadahadalo dhexmara dadka deegaanka iyo nimanka la yiraahdo somalilan marka xaaladdu way adkaatay dagaal aad u culusaan ka dhacay meel 12 qofood oo ku dhimatana dagaal dhowr saacadood socday ayaa halkaas ka socday waxaa kaloo la sheegaya in maanta oo shir ka socdo magaalada laascaanood taasoo uga socdo wasiirada somalilan ergada ay soo dirtay iyo dadka odayaasha ee deegaanka iyagoo wada hadalkoodu meel lagu soo afjari doono waxaa kaloo la sheegaya in odayaashu si gooni haddana ay shir kale u baxeen markii kaas uu soo dhamaaday ayaga garaadyada ay ka mid yihiin magaalada laascaanood go-aan ay ka qaadan doonaan masiirka dadka reer sool iyo sanaag iyo cayn ay go-aan cad u gaari doonaan marka wada hadallada meel wanaagsan ayay marayaan laakiin waxaa laleeyahay xaaladdu weli kacsanaan ayaa ku jirto magaalada laascaanoodna waxawaay maalin walba dagaal u joogta ayay noqotay xalayna dagaalka ugu xuma ayaa ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay laakiin wasiirka xalay meesha la weeraro uu ka badbaaday inkastoo xalay guri xaafadda uu degnaa rasaas ay soo gaartay dadka wararkan waxay sheegeen in xaafadiisa xataa dad ay ku dhaawacmeen marka xaaladda laascaanood weli way kacsan tahay dagaaladiina weli way jiraan ciidamaduna saaka firxad ayay bilaabeen oo ciidamada saaka way soo yaaceen oo magaalada duleedkeeda kusoo yaaceen waxayna leeyihin waxaan baadigoobeynaa raggi xalana soo weeraray raggina magaalada ayay ku sugan yihiin marka dagaalku joogta ayuu noqday mar walbana waxaa u maleysaa in xaaladdu ay sii kala fogaanayso maadaama dagaalo maalin walba ay iska socdaan marka waxaa la ogaan doonaa garaadyada maanta shirka yeeshay go-aanka ay gaaraan oo deegaanka u dhashay wixii ay go-aan ay soo saaraan ayaa lagu dhaqaaqi doonaa waxaana laga yaabaa in wada hadalka toos loola geli doono wasiirada go-aan cadna loo dhiibi doono wasiirada markaasna ayaga kula laaban doonaan muuse biixi cabdi go-aanka ummadda soomaaliyeed ama dadka deegaanka reer laascaanood ay gaaraan in loo gudbi doono muuse biixi cabdi markaas kadibna la ogaan doono fargoda wixii kasoo baxay gooni aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka arintan maxay u muuqataa shirkaasi iyo weliba weerarkii xalayse maxaa ku dhintay baa la sheegayaa wallahi horta weerarku wuxuu fashilinayaa shirkaas iyo wadahadalada u socdo somalilan iyo dadka reer sool wadahadalka u socda ayuu fashilinayaa waxaana dagaalkun wuxuu ahaa mid gaadma ah xalay saq dhex ayaanu dhacay ciidamada lagu weeraray duleedka magaaladaasi meel 2 kilomitr 3 kilomitr u jirta ciidamada ay ku sugan yihiin ayaa lagu weeraray laakiin waxaa la sheegayaa in ciidamada khaatuma dad badan ay ka dhinteen ayaguna ay dileen 12 qofood oo ciidamada somalilan ah 4 qofood oo ciidamada somalilan ay dhaawaceen marka dagaalku ma sahlano saaka ciidamada ayagoo xanaaqsan ay soo yaaceen magaalada gudaha umay gelin laakiin geesaheeda iyo daafaheeda meelo kale inay dadkii joogaan ayay raadinayaan laakiin ciidamadii wax soo weeraray magaalada ay ku laabteen ciidamo aad u fara badan oo dadka khaatuma u dhashay ayaan halkaas ku sugan kuwaasoo mar walba dagaal joogta ah ka geysto marka waxay sii kala fogeynaysaa wadahadalada halkaasi ka jiray maadaama saakay ciidamada somalilan 12 qofood oo askartii somalilan ay dhimatay ay u yaalaan waxay ka xanaaqsan yihiin in wadahadalo lasii wado waxayna rabaan in magaalada gudaha u galaan laakiin wasiiradii ayaa ku sugan oo magaalada ayaga wadahadalka hortaagan wadahadalka ayaga wado marka kuma degdegi karaan in ciidamada gudaha ay galaan inta wadahadalku kasoo dhamaanayo fargudow
gooryo aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. haddii aan u jalleecno dhanka ayaa magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa in saraakiil dhowaan lagu qabqabtay la horkeenay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida, kuwaasi oo ka hor qirtay inay iyagu soo fasixi jireen ambaba ay fududeyn jireen qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho, taasi oo beddelkeeda ay qaadan jireen lacaga xad dhaaf ah oo ay siin jireen kooxaha al-shabaab. haddaba arrinta waxaa inoo faahfaahinayaa saaxiibkay gooni. faragooda waa mahadsan tahay. shalay wararkeen waxaan ku sheegnay in saraakiil loo soo xiray qaraxyadii magaalada muqdisho ka dhici jiray la xirxiray, baaritaan oo ku socdo mid midna loo soo saari doono maxkamadda. shalay waxaa maxkamadda lasoo saaray dhame maxamed shariif warsame, dhame waxaa lagu magacaabaa dhame maxamed barqadle ayaa lagu magacaabaa. marka ninkaas wuxuu ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya, wuxuuna qirtay inuu qaraxyada soo gudbin jiray muddo fara badanna uu la shaqeynayay shabaabka. dhame ninkaas oo lagu magacaabo wuxuu ka shaqeyn jiray ciidamada isheeg militariga ayuu la shaqeyn jiray, wuxuuna ahaa taliyo urur. sababta oo weerarka u geysan jiran wuxuu sheegay taliyahaas urur oo laga qaaday xilka laga qaaday ayuu ka xanaaqay 2019 waqtigii maxamed cabdulaahi farmaajo. wuxuu yidhi marka waxaan ka xanaaqoo dhahay taliyahaas laga qaaday ayaan ka xanaaqay, waxaana wada hadal iyo shaqeyn la bilaabay shabaabka, taasoo mar walba lacag ay igu siin jireen. wuxuuna sheegay in laba hoobiye oo ka gaday, oo wararkan horena aan ku sheegno in laba hoobiye ka gaday, qaraxyadana uu fudeyn jiray. meelaha oo asaga qaraxyada soo fudeeyey ee ka dhaceen oo magaalada muqdisho dadka lagu laayay waxaa kamid a muqdisho mool, waxaa kamid a liido, waxaa kamid a hotel wehliye, waxaa kaloo kamid a villa baydhaba iyo meelo kale, taasoo laleeyahay wuxuu qaraxyadii uu soo fudeeyey ku dhintay 100 qofood oo shacaba. cadeymo iyo sawiro kamid ah dadkii oo laayay halkaasi waa lasoo bandhigay. marka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay sheegtay in go-aan ay ka gaari doonto ninkaasi. marka taliya shuute ayaa sheegay in maxkamadda maadaama ninka ugu sarreeya uu yahay in go-aan cad maxkamadda ka gaari doonto, soona saari doonto war ku cad wixii lagu go-aamiyay ama wixii lagu xukmiyay. marka asagoo afkiisa ka qirtay wax qarin ah oo qariyayna ma jiraan, si caadi ayaan u sheegay, waana la shaqeyn jiro dhahay muddo fara badan aan la shaqeynay qaraxyadana anigaa soo gudbin jiray. waxaa la isweydiinayaa saraakiil farfara badan baa la qabtay gooniyow, kuwaasi weli maxkamadda lama soo horkeenin oo dee arrintaasi far baa ku godan. arrintaasi maxaad warkahaysa iyada? maxkamadda dad fara badan ay haysaa, waa run. dad ilaa 37 qofood ah ayaa xiran oo qaarkood qaraxyo kala duwan loo haysto, laakiin step ayaa maxkamadda lasoo saarayaa. mar labo mar hal marba maxkamaddu way socon doontaa. marka maadaama dowladda shabaab ay dagaal kula jirto, dagaalku intuu socdo waxaa joogto maalin walba wax lagama dhigi karo. marka isbuuca la joogo midaa lasoo saari doonaa, ama 2 maalin marka la joogo midaa lasoo saari doonaa. marka way socotaa, rag fara badan ayaana jiro. ninkan sargaalkan waxaa muddo fara badan ayaa la shaqeynaya uu yiri nimanka la yidhaha shabaab, wuxuuna ciidamada soo galay si caadi usoo galay 2000 ilaa hadda 22 sano ayuu wuxuu la shaqeynaya ciidamada militariga soomaaliyeed. marka wuxuu sheegay in rag kalena ay jiraan oo ciidamada ka tirsan haddana la shaqeeya shabaab. marka waxaa kaloo hadlay taliyaha afhayeenka ciidamada afhayeenka wasiir gaashaandhigga ninka lagu magacaabo cabdulaahi cali caanood ay wuxuu sheegay in ciidamada soomaaliyeed ee dagaalka ku jiro mar walba habeenka shabaab inay soo weeraraan saq dhexe 10 saac habeenimo ilaa 9 saac habeenimo ay keenayso in ciidamadu marka hore ay qayilaan. teeda kale ciidanka macuusliyada wuxuu yidhi qayb kamid inay ganacsatada ay la shaqeeyaan, ganacsada qaadka ay la shaqeeyaan, qaad fara badanna loo keeno. marka wuxuu yidhi ciidamadu habeenkii markii 10 saac la gaaro ama 9 saac la gaaro waxaa dhahay way seexanayaan, shabaabka ayaana go-aan ku gaaraya inay soo weeraraan. wuxuu kaloo sheegay in marka ciidamada rasaasta ku yartahay xataa xog ay bixiyaan rag military ka tirsan oo ciidamada dowladda ka tirsan ay shabaabka xog siinayaan, ay leeyihiin maanta ayay xaaladdu daciif tahay, ciidamada rasaas yari ayaa hayso, ama ciidamada meesha ku sugan waa yar yihiin hala soo weeraro. marka wuxuu dhahay rag military ka tirsan ayaa wuxuu mar walba xog gudbiyaan, hadda sida ninka lasoo qabto kale. marka waxaa la weydiiyey su-aalaha, maadaama aa ogtihiin in ciidamada mar walba ay dad la shaqeeya ay ciidamada ku jiraan, maxaad usoo qabqaboweyseen? marka wuxuu sheegay in isku dhexmilanka nimanka leer macuusleyda iyo ciidamada militariga ay culays badan keentay dagaalka ay ku wada jiraan. wuxuuna sheegay in inta la kala saarayo oo dagaalka shabaab laga guuleysanayo si tartiiba loo raadin doono dadka qaraxyada soo gudbiyo, dadka qayilayana in wax laga bedelo ay dowladda go-aan kasoo saari doontaa, maadaama inta habeen walba inta la qayilo 9 saac ama 10 saac habeenimo la seexdo, nimanka shabaabkana 11 saac ama 10 saac habeenimo weerarka ay soo qaadayaan. marka waxyaaba fara badanaa la iftiimiyey. marka faragodow dadka shabaabka loo soo xirxiray waa badan yihiin, baaritaankooduna waa socdaa, maalin walbana kuwa cusubaa lasoo bandhigaa fargod. aada iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyow. dhanka kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay dadka ambaba weeraray dadka ku nool magaalada muqdisho, kaasi oo ra-iisul wasaaruhu sheegay in iyagu martigeliyaan kooxaha al-shabaab ee qaraxyada iyo dhibaatada ka geysta magaalada muqdisho. haddaba gooniyow arrintaas soo koolo muuqataa ra-iisul wasaaruhu uu ku weeraray dadka shacabka ee degan magaalada muqdisho. walahi ra-isul wasaaraha xamse cabdi barre
maanta waxaa la sheegay in safar dibadeed oo aaday oo meelahaas wadamada kale oo aaday. Marka xalay wuxuu ka dhawaajiyey in arrin muran badan dhalisay, taasoo ku eedeeyay shacabka magaalada muqdisho, oona sheegay in ay hubka iyo qaraxyada dadka geysta ay guryahooda ku haystaan. Horta waa sax weerarka uu ku qaaday dad fara badan oo micnaha shabaabka la shaqeysta ama shabaabka la degan ama ganacsato ah ama shabaabka martigeliya way jiraan, laakiin 100% ee dadka shacabka magaalada muqdisho degan shabaab ma wada martigeliyaan. Laakiin shacabka si guud ayuu u weeraray, wuxuuna yidhi shacabka magaalada muqdisho waxaad guryihiina ku haysataan ragga qaraxyada sameeyo ama ragga wuxuu yidhi shabaab ka tirsan. taas waa sax, dad badanaa ku haysto. wuxuuna sheegay in haddii aad qaraxyo magaalada muqdisho dadka sameynaya aad ku haysid oo shacabka masaakiinta aan leynayo, waxaa dhaanto yidhi adigoo qamri cabo oo jididka iska seexseexdo, idinkoo qamri inta iska cabtiin reer muqdisho waa iska seexatiin ama jididka iska dhadhacdiina dhaanto yidhi meesha nin dad leynayo aad guryihiina ku haysa lehedan. marka xamse cabdi bare aad ayuu u weeraray dadka magaalada muqdisho. saakay hadaleynta ugu badan waa warka xamse bare oo aad ugu weeraray shacabka magaalada muqdisho, wuxuuna sheegay mar walba dadka qaraxyada iyo dhibaatada iyo dilalka iyo wax sameeyo inaad magaalada muqdisho aad ku dhaxaysataan. waana run oo ragga weerarada geysto iyo ragga wax qarxiya iyo ragga micnaha kuwa banaanka ka yimaad kuwa kale magaalada degan madax jabiska loo yaqaano, dhammaantood dad ay micnaha ka dhasheen magaalada muqdisho ayna degan yihiin. waana dad dhalinyaro ah oo dad qoysas kasoo akacayo. waa sax 100% xamse bare wuu ku saxsan yahay in dadka shacabka ee magaalada muqdisho degan qeybo kamid ah ay xiriir leeyihiin shabaabka ama ay mar walba agtooda kasoo kacaan. marka waxaa la dhihi karaa bam ayuu dhex dhigay shacabka magaalada muqdisho. saakana shacabka waxay ku qaxweynayaan hadalka xamse cabdi bare, waxaana sheegay in baaritaan la sameyn doono oo baaritaan guud oo magaalada ah ama dadka xaafadaha ama dadka shabaabka guryahooda ku haysto in la baari doono, dowladduna ay xoogeysan doonto, arrintan arrin ka duwanna ay imaan doonto. marka wuxuu sheegay in dadka intaan lasoo qabanin ama dabagal lagu sameynin inay hadda ay iska soo wareejiyaan wixii shabaab guryahooda ay ku ogyihiin. hadda ka hor ee dowladda soomaaliya waxay go-aan ku gaartay in qofkii gurigiisa laga helo shabaab ama qarax wado in hadhow la sameyn doono maxkamad la saari doono, gurigana lagala wareegi doono. marka cabsi fara badan ayaa jirto, inkastoo la dhihi karo 3 usbuuc ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho baaritaankeedu waa saayiday, cabsidii dadka ay cabsanayeen waa saayiday, qaraxyadii faraha badnaan magaalada muqdishona waa yaraadeenoo magaalada aad ayay hadda u fiican tahay oo muddooyinka lasoo dhaafay wax qaraxa kama dhacin faragodow. aada iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa gooni oo intaa badan ka faallooda arrimaha koonfurta soomaaliya geeska africa. daawadayaal barnaamijkeena iyo faaqidaada intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. intaan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid lamida waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.